magacaygu waa Cawaale Axmed oo Cali waxaan ahaa arday ugu sareeyay imtixaanka ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya sanadan 2021 waxaa farxad weyn ii ah in madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug uu igu qaabilay xarunta madaxtooyada runtii waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha oo runtii si weyn igu hambaliyay bogaadin iyo dhiirigelin aad u sareysan ii soo jeediyay runtii madaxweynaha waxa uu igu dhiirigeliyay inaan halka dadaalka ka sii wado oo aan waxbarashada si la wajibaaro waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa saddexda arday reer Galmudug ka soo muuqatay 10 arday imtixaankii fasalka 12aad ugu horeysay dawladda federaalka ah ay qaaday sidoo kale waxaan u hambaleynayaa 10 arday imtixaankii fasalka 8aad ee wasaaradda waxbarashada Galmudug ay qaaday kaalimaha 10aad soo galay ayaan hambalyo iyo bogaadin runtii aan u dirayaa waxaana u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo mustaqbal ifaya sidoo kale waxa runtii farxad aad u ballaaran ah oo guul ah oo reer Galmudug oo dhan inay ku faanaan ah in ku dhawaad 5,000 ee arday ee dhacday inay Galmudug ku leedahay 2 arday oo kaliya sidaas oo kalena boqolka iskuul ee la soo saaray ee imtixaankii ugu liitay inaysan Galmudug hal iskuul aysan ku lahayn sidoo kalena waxa ayadana bogaadin mudan in 30 iskuul ee Soomaaliya ugu tayada wanaagsaneed markii imtixaankii la eegay in Galmudug ay ku lahayd 10 iskuul oo kamid ah halka 20 iskuul oo kale ay wadaagayeen dawlad goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir runtii bogaadin ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa horumar waara waxaan rajaynaynaa waxbarashada Galmudug oo jiha wanaagsan u jihaysata isla markaana waxbarasho tayo leh noqota maalinba maalinta ka dambeysana si hagaagta